haddii ay noqoto muddo kororsi mudane madaxweyne adigan toos kula hadlaya waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne maanta ma ku habboon tahay in adigoo og dalka heerku marayo inaad tiraahdo muddo kororsi baan ayaa samaynaya 4 sano wixii aad qaban weyday 2 sano lagu kordhiyo maanta ma ku samaynaysaa waxay la tahay yaan lagu khaldin waxaan u maleynayaa dad la taliyaalo fiican oo kula taliya ma haysatid annagu waan tabaaleysnay annagoo dhiban oo dhibaato ku jirna ayaad noo timid dhibtii inaad naga saartaa baan rabnay nagamaad saarin waxay noqotay ka daro dibi dhan qaasimba waxaa laga hayaa hawaankii maxay tahay reer waqooyiga ayaa waxaa laga hayaa 1960kii halkan hore loo dukiyay darajo eegayay maraadkan daraad dhigan dib ugu soo laabtay yaa marka halkii bay maraysaa madaxweyne waxa lagaga baahan yahay anagu muddo kororsi ma baahnin wax qabad baan u baahnay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed haddaanu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed wax qabadkii 4 sano waa dhamaysatay haddii aad waxba ku qaban weyday waxa weeye 2 sano anagu muddo kordhino ma hayno kumana ogolin madaxweyne waxa weeye waari maysiga warakaada looma taalo hawshaas Soomaaliya looma taalo wax la kordhiyo baarlamaanka xilligiisa waa dhamaaday madaxweynaha xilligiisa waa dhamaaday iyagu iskama laha Soomaaliya waa wax wada leh waxaan Soomaaliya aanay u dhamayn oo aanay heshiis ku ahayn lama dhis karo lama kordhin karo 4 sano xilka hayeen 4 sanana meeshii la doonayay ma aan gaarsiin xamar bay dhaaf leeyihiin xitaa xamar amnigeedu baan xasiloonayn kursi jacayl uu baa ka dhalanaya Soomaalinimo iyo horumar iyo wax soo saar ka dhalan maayaan marka waxaan leeyahay ha ku degdegina haddaad kordhisaana idinka ayaa kordhistay oo Soomaaliya waxba uma kordhin waxaan isleeyahay haddii muddo kororsi oo dhaco waxaan isleeyahay wuxuu ku dhici karaa qaab sharci darro ah hadduu ku dhacana waxaan isleeyahay wuxuu keeni kartaa qalqal siyaasadeed xagga amniga xagga bulshadii iyo magaalada Muqdisho oo noqoto mid amnigeeda iyo maaragtay aan la isku halay karin inay taasi sababto waxa dhici karto dagaal sokeeye sababtoo waxaan ognahay extensionka haddii uu dhaco sidii dhici jirtaba ama horay markii adiga ilaa 22 sano ka hor wadankan dhibaatada maanta timid waa waqti la dheeraystay iyo dictatornimo iyo waxyaabaas ay ku timid runtii marka waxaan isleeyahay waxa dhici doonto in la doorto qolooyinkan kaleeto oo ayagana mucaaradka oo kaleeto iyo maamul goboleedyada qaar inay sameystaan madaxweyne kale oo gaaro ayagana magaalada dhinaca ka dhiso ayaguna dhinaceena ku shaqeynayna magaalada ay yeelato ama wadanka oo yeesho laba madaxweyne oo isku shaqeyso taasna ay keebi karto caqabad weyn oo bulshada Soomaaliyeed u soo hoyatay haatan jirtay waqtigeedu dhamaaday waqtigeedu muddo ugu yaraan 2 bilood in ka badan ay dhacsan tahay waqtigeedu ilaaday doorashadii laga rabay ama laga filayay inay qabtaan way ku fashilmeen maadaama doorashadii ay ku fashilmeen haatan uma jeedo xal la oran karo muddo kororsi ha lagu sameeyo tan kale muddo kororsiga horta markii waad yaad sameeyay muddo kororsi maantay waxaan qabaa in dadkan stakeholderska iyo dawlad goboleedyadu hadiiba uu jiro xalkiisa isagoo sharci darro ah in iyagu ka wada hadli karaan laakiinse baarlamaankan haddeertaan la fariisinayo oo la isu geynayo oo baarlamaanku waqtigoodu dhacayo iyagu madaxweynaha iyo xukuumadda ka sii horeeyay waxaan qabaa shakhsi ahaan muddo kororsi ma samayn karaan bataatanba kow haddii muddo kororsi dhaco oo muddo kororsi xoog ku salaysan uu dhaco dabcan haddeertaan wax hal ku salaysan uma jeedin wax xoog ku salaysan hadduu dhaco waxaan isleeyahay kacdoon shacab ama qalalaaso kii 1990kii dalku galay oo kale in loo wado marka waxaan nin odayahan waxaan ku talin lahaa intii qalalaasa dalkan ka dhici lahaa oo dhibaato ay dhici lahayd hadda dhibaatada waa ka baaqsan karnaa waxaan uga baaqsan karnaa in doorashadii wada hadalkeedii la sii adkeeyo halka laga sii wado marka qaab hadeertan oo ku dhici karana uma muuqdo mana jirto iskoorin sharci haddii ay dhacdana dalka dib ay u laaban doonaa ma aaminsan wax 4 sano la soo dhaafay doorasho lagu qaban waayo in lagu qaban karo 2 sano mana doonayna dalka aan awalba dib uga harnay dunida aan awalba dib uga harnay in nagala reebo waxaan ahayn dal la jaan qaadi raba dunida balse waxay noola muuqataa in dictatornimo iyo caburin iyo loo laaban doono wixii shalay laga soo baxay